tababarkan oo si rasmi ah u furay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare markaasina ay weelinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo saraakiisha sare oo ka socda hay'adaha caalamiga iyo kuwa wadaniga ayaa horeba madasha soo hadalka hooban ka jeediyay madaxa tababarada ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdiqaadir Xasan Cabdi oo ka warmay tirada ka qayb qaadanaysa tababarkaasi iyo guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka sida uga bilaabmay tirada macallimiinta ay halkan maanta lagu tababari doono waa 75 macallin oo ka kala socda gobolada Saaxil, Maroodijeex iyo Awdal waxaana lagu tababari doonaa iyo Gabiley waxaana lagu tababari doonaa qaabka wax dhigista ama teaching methodology-ga iyo subject matter-ka oo knowledge-kii cilmi ahaan macalinka laga kaabayo wuxuu socon doonaa tababarku muddo 2 bilood oo ka soo bilaabmaysa 10kii bishan oo dhammaan doonta hadii Ilaahay yiraaho 10ka ama 10ka bisha September dhammaan doonta gudoomiyaha waxbarashada waxda galbeedka gobolka Maroodijeex Xuseen Ibrahim Xasan ayaa isna macallimiinta kula dardaarmay in tacabka la geliyo ay uga faa'iideeyeen daayirta gacanta ku hayaan Cabdinaasir oo isaguna ka tirsan saraakiisha hay'adda NRC ayaa isna tilmaamay mashruucan inuu yahay mid ka socda sanduuqa horumarinta cilmiga laba isla markaasina wasaaradda kala shaqeynayaan waxaan ugu dardaaranaa waqtiga kooban ee joogtaan inaad ka faa'iideysataan runtii awoodda saartaan inaad aqoonta ka qaadataan macallimiinta tababarkayna siinaysa isla markaana aad ku darsataan wixii aqoontiina tababarkaasi markaa tababaradu muddo dheer bay soo socdeen runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inuu maanta joogo agaasimaha guud oo ah mas'uuliyiintii ugu horeysay ee furay tababarada macallimiinta dugsiyada dhexe oo Scott program la oran jiray wajigiisii koowaad mas'uuliyiintiisa kamid ahaa maanta agaasimaha guud waxaan filaynaa ma aragtay tababarada inay sii socon doonaan oo aad ka faa'iideysan doontaan idinkuna agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Haldoor Axmed Abubakar Maxamed ayaa isna iftiimiyay in wasaaraddu ay dadaal dheer ugu jirto sidii loo tayeyn lahaa macallimiinta isla markaasina aqoontu ay u noqon lahayd mid tayo leh oo qaranka anfacda tababarkan ujeedada wasaaraddu ka leedahay waxa weeyaan in macallinka la tayeeyo marka haddaad tiraahdo anigu master baan sitaa ama jaamacad baan ka soo baxay oo ardaygiisii wax lagu dhigayo aad garan weydo anigu shahaadadaas wax noo tarmayso waxaan doonaynaa macallin yar yaqaana laakiin kalaaska markuu joogo si fiican wax u dhigi karaya oo arday soo saari kara markaa tayo leh gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdilaahi Ibraahim Abane ayaa ku dheeraaday dadaaladii wasaaradda oo ka gashay kor loo soo qaado tayada macallimiinta isla markaasna waxa uu kula dardaarmay inay xil iska saaraan daayirta gacanta ku hayaan sidii ay u kasban lahaayeen aqoon buuxda halkaas inuu baahan yahay dhamaanteedba tababarkan markuu inii dhamaado hadii la yiraahdo 9 bilood baa loogu talagalay 2 bilood oo la shaqeynayo iyo 4 bilood wax la dhiganayo markuu inaga dhamaado sanadka dambe hadda oo kale ninkii la gaarsiiyo imtixaan kale naga qaadi doonaa marka shahaadada la nid diyaarin doonaa ku dadaalay inaan dhicin saad hore ugu socotaan wasaaraddu diyaar bay u tahay hore inay socodsiiso adduunkana hadaynu maanta adduunku inagu yar yahay adduun baynu heli doonaa barnaamijyaan diyaarinaynaa haddayna sidaa uga warqabin waxbarashada oo ayna sidaa ugu dadaalin barnaamij u keenin la suuroobayso in waxbarasho ay halkaa inooga soo baxaan mana wada awoodno inaynu halkan ku wada hayno dadka